ka dhaqan galay degmooyin ka tirsan dowlad goboleedyada dalka. waxaa xalay bandow si rasmi ah ugu dhaqan galay magaalooyin ka mid ah dowlad goboleedyada Hirshabelle iyo Jubbaland kaasoo looga hortagayo faafinta cudurka COVID-19. wasiirka amniga Hirshabelle xildhibaan Maxamed Cabdiraxmaan Kheyre ayaa sheegay in wixii laga bilaabay xalay salaada cisho wixii ka dambeeyay deegaanada Hirshabelle uu ku dhaqan galay bandow socon doona ilaa iyo salaada subax kaasoo looga gol leeyahay ka hortagga cudurka COVID-19. laamaha amniga Hirshabelle ayuu wasiirku ugu baaqay inay dhaqan geliyaan amarada lagu soo rogay deegaanada Hirshabelle. dhinaca kale dowlad goboleedka Jubbaland ayaa bandow xilliyada habeenkii ah waxay ku soo rogeen magaalooyinka Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose kaasi oo xalay ka dhaqan galay taliyaha guud ee ciidanka Jubbaland General Adam Mahmoud Ibrahim ayaa sheegay in bandowga uu Kismaayo ka bilowday 7 fiidnimo kuna eg yahay 11 subaxnimo isagoo ciidamo ku amray inay dhaqan geliyaan si looga hortago faafinta cudurka COVID-19 kaasi oo kiisas ka mid ah laga helay magaalada Kismaayo ee xarunta gumeergaarku ah dowlad goboleedka Jubbaland. bandowgan lagu soo rogay degmooyin ka mid ah dowlad goboleedyada Hirshabelle iyo Jubbaland ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli habeennimadii xalay 8 fiidnimo ilaa iyo 11 subaxnimo in bandow uu ka dhaqan galay guud ahaan magaalada Muqdisho kaasoo uu ku soo rogtay dowladda dhexe federaalka Soomaaliya. saaxiibayaal guud ahaan warkii telefishinka raadiyo wadani TV xaruntiisa magaalada Beledweyne caawa nageenta waxaa halkan ka soo jeedinayay aniga wariye Cabdinuur Ismaan Aadan Carays warkan kiisa xiga inta dib aan ku kulmi doono sida iyo nabadgelyo.